munaasabadan oo ay ka qaran jabiyeen dufcadii afraad ee jaamacadda Golis Farciida magaalada Laascaanood ardayda qalin bedelatay oo tir ahaan gaadhaysa 116 arday oo ka kooban kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ay ka kooban tahay. Munaasabadan aadka loo bilacay waxa ka soo qayb galay Cuqaalo Waxqarad, culimo, ganacsato, maamulka waxbarashada heer gobol, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool, gudoomiyaha jaamacadda Golis Farciida Burco iyo waliba waalidiinta ardayda qalin bedelatay. Ugu horreynna waxa hadalka furay gudoomiyaha jaamacadda Golis Farciida magaalada Laascaanood Professor Yusuf Axmed Faarax Aflahaar oo isagoo ka waramay marxaladihii kala duwan ay soo martay jaamacaddu. Halkan ardaydaas oo dhan 116 arday oo 72 ay gabdho tahay 44 ay wiilal yihiin. Ardaydaas waxay soo dhameysatay badankoodu waa degree waxbarasho 3 sano bay soo dhameysteen. Marka laga reebo 29 dibloma oo iyagu 1 sano dibloma dhiganayay. Xogaa wax yar hadaan ka taabto inkastoo aan qayb dambaysiinayo oo hadhowto marka la guddoonsiinayo degree-ga iyo qolyahan caafimaadka oo iyagana dhaar la marinayo. jaamacaddan Golis Laascaanood 2015 bay furantay. difcadan hadeer baxaysa waa difcadii afraad waxa ka qalin jabisay 534 arday ayaa ka qalin jabisay. sababta jaamacadda loo aasaasay waxay ahayd in ardayda gobolada kale aadaysa chance loo siiyo inay gobolkooda wax ku bartaan. waxa kale oo ay ahayd si aanay gobolada fogfog aadin oo reerahooda iyaga wax la qabo waxbarashadiina oo helaan. waxa kale oo ahayd in waxbarashada la tayeeyo oo si tartan lagu tayeeyo. waa jaamacaddii labaad ee laga furo gobolka Sool, Nugaal baa ka horeysay. haddii jaamacaduhu tartamaan tayadu way fiicnaanaysaa. Professor ama Dr. Yusuf Aflahaar waxaan u malaynayaa dadka gobolka ka soo jeeda 8% dhalinyarada ama gudaha joogeen ama dibadda joogeen. Yusuf macallin buu ahaa, aniga macallinkaygii buu ahaa. nimadu waa wax aad u qurux badan laana had iyo jeer wuxuun iskiilka waxbarashada ku jirta wuxuun macrifada ku kordhay. marka waxaan kula talinayaa ardayda maanta qalin jabisay jaamacadda Golis inagama baahna dacaayad. runtii waa jaamacadda koowaad oo aan isleeyahay kalsoonida ardayga waad ku aamini kartaa waarid walba. keenayna hadduu Ilaahay yiraahdo iyada oo ardaydu intan ka sii badan tahay magaaladuna ka wacan tahay dalkuna ka wanaagsan yahay in sanadka dambe aynu isugu iman doono qalin jabinta labaad ee jaamacadda Golis. waxaan u maleynayaa jaamacaddu research far badan ayaa ardaydu ku qalin jabisay waxaana bartuu ka deegaanka wax ugu celiso jaamacaddu. gabagabadiina mar kale maamulka jaamacadda Golis ayaa shahaadooyin guddoonsiyay ardaydii qalin bedelatay oo isugu jirtay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay. Cabdiqani Xasan Faarax warbaahin